shabeellada hoose guud ahaan iyo shaqada hadda ay wadaan taas oo maanta dhiirigelin noo noqonayso wasaarad gaashaandhig ahaan iyo taliskaba farxad weyn ay noo tahay ciidamadeeda waxaa waye moralkooda iyo shaqadooda maanta waan aragnay waa arrin aad iyo aad looga farxo way waxayna tusaale u noqon doonaan ciidamada kale dalka jooga howlgallada ay wadaan iyo shaqada ay hayaan waxaa kale aad iyo aad ugu mahadcelinaya wasiiradda caafimaad oo ayadan maanta nala joogto maadaama ciidankeena dagaal ku jiro soo dhaawacmayo mar kastaba aan u baahannahay in daryeel aan helno si ciidamadeena loo dhiirigeliyo markay dhiigooda iyo naftooda bixiyaan ayagana loo daryeelo marka ra'iisul wasaaraheena nala joogo maanta aadaan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaare booqashadan iyo booqasho kale la mid ah ciidamada dalka meel ay joogaan waxay u tahay dhiirigelin aad iyo aad u wanaagsan ciidankeena marka moralkiisa ku dhismaya maadaama madaxdii qaranka ugu sareysay ay la joogto waxaana ugu talagalnay maanta guutadan hadiyad yaro oo laakiin magacaas ka aho ayadan looga talagalay moralka in lagu dhiso marka ra'iisul wasaaraha aan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ciidankan waa mahadsantihiin halkan u imid inaan indheeyo ama daraasadeeyo ama aan u kuur galo xaaladda walaalahay ciidamada commandoska danab ay ku sugan yihiin taasoo muhiimad ii siinaysa inaan ogaado heerka aad ka joogtaan aqoon ahaan awood ahaan iyo tababar ahaan waad ogtihiin waxaan rabnaa in ciidanka Soomaaliyeed uu xoogaysto awood yeesho haddii Ilaahay raali ka noqdo si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka Soomaaliyeed waxaa la rabaa idinkana inaad noqotaan ciidankii ugu xooga badnaa oo arrintaas ka dhabeeyo insha Allah idinkana waa idinku tashanaynaa idinkana nagu tashta waa mahadsantihiin booqashadeydii aan ku yimid Beledoogle aan ku soo booqday ciidamada aan har iyo habeen dhiigooda xoogooda maskaxdooda aan ku jifno gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku xisaabtamayso inay cadawga ka ilaaliyaan xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa ciidamada danab iyo dhammaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda xoogooda inaan intii dhimatay aan Ilaahay uga baryo inuu naxariistii janno siiyo ayna ahaayeen rag shuhadaa ah intii dhaawacan oo hadda dhaawacan waxaan Ilaahay uga baryayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku seexdaa magaciina ayuu ku jiiftaa la'aantiin waxba ma qabsan kara shacabka ka dawlad ahaan annaga waxaa naga go'an inaan mar kasta idin garab istaagno diyaarna idin kula nahay wax alla wixii awoodeenna ah boqolkiiba boqol inaan idin garab istaagno aniga ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin waa idin hambalyeynaya insha Allah markii koowaad maahan waa soo noqonaya sidaan u barto waaye insha Allah waxaan rajaynayaa General Odawa ka codsanaya next time frontier inaan idin la tago hadduu Ilaahay raali ka noqdo diyaaraan u ahay ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank